السلام عليكم. عندي ورارك تركيا دغيستا بدن ku waxay maqleen sanada 2023 ama siyaasiyiinta Turkiga shacabkooda ugu bishaareenay sanada 2023 hadaba maxay dalal badan oo reer galbeeda war badan ugu hayaan sanada 2023 ama ugu cabsi qabaan muuqaalkan inta ku jirnaa ka jawaabi doona fadlan haddii nagu cusubtay subscribe sar sad noola socoto muuqaalada dambe daawasho wacan dhammaadkii dagaalkii koowaad adduunka 1918 dalalkii reer galbeedka guuleystay waxay la galeen heshiis dalalkii jabay oo ay kamid ahaayeen Cusmaaniyiintu waxaana la gaaray heshiis loo bixiyay safar oo dhacay 10 August 1920 oo ahaa qaybinta dhulkii Cusmaaniyiintu ka talineysay laakiin Turkidu way diideen heshiiskaas waxayna qaadeen duulaan ka dhan xulufadii reer galbeedka ee heshiiskaas safar wadatay ilaa ay Turkidu guuleysteen oo xulufadiina jabiyeen waxaana kamid ahaa dagaaladaas dagaalkii 1922 ay Gariiga la galeen Turkidu ay ku jabiyeen dagaalkaas kadib waxa la isla afkartay heshiis loo bixiyay Lausanne oo dhacay 1923 bishii July 24 oo isku afkarteen reer galbeedku iyo cilmaaniyiintii Turkiga qabsatayba soo afjarida khilaafada islaamka ka saarida khaliifkii muslimiinta iyo reerkiisaba Turkiga iyo in laga reebo hantidiisa oo dhan iyo in dawlad cilmaani ah laga dhigo Turkiga oo ah in la kala saaro diinta iyo maamulka iyo soo kale in Turkigu shida la soo baxo laga mamnuucay oo xataa marinka Bosfor laga dhigay marin caalami ah oo aan Turkigu soo faragelin karin wax cashuurana ka qaadi karin maraakiibtaas kaga gooshaysa marinkiisa waxaana filayna isla fahnay heshiiska Lausanne waana heshiiska ay ka dhalatay dawladdan maanta naqaanay Turkiga ama jamhuuriyadda Turkiga waxaan ku ogyahay heshiiskan sanada 2023 waana boqol guuradii jamhuuriyadda Turkiga oo waxa la rajaynayaa inay isbedeli doonaan xuduudaheeda iyo dhaqaalaheedu heshiiskana bartaas ku ekaan doono hadaba maxay tahay waxay rabaan inay Turkigu xaqiijiyaan 2023 ama madaxweynaha Turkigu ku taamay in sanada bilowgeeda uu xaqiijiyo waxa kamid ah horumarka uu rabo madaxweynaha Turkigu sanadaas bilowgeedaba ka dhigida Turkiga mid kamid ah 10 dal ugu dhaqaalaha badan dunida gaarsiinta dakhliga Turkiga 2 trilyan sanadkii kor u qaadida dakhliga muwaadinka Turkiga ilaa $25,000 sanadkii ka dhigida Turkiga meesha shanaad ee dalxiisayaasha u badan dunidu yimaadaan in Turkigu qaabilo 75 milyan oo dalxiisayaal sanadkii ballaarinta iyo horumarinta isku gooshka tareenada aadka u dheereeya ka dhigida Istanbul caasimadda adduunka dhanka caafimaadka ka shaqaysiinta aqooyo goobta lagu magacaabo ee nuclearka dhanka tamarta looga faa'iideysanayo soo saarida 1 milyan oo gawaadhida charger ku shaqeeya ee dalka gudihiisa lagu farsameeyay ballaarinta qiimaha dhirta ilaa 30% ka kaaftoomida hubka banaanka laga soo iibsanayo si dhameystiran iyo kordhinta diyaaradaha rayidka ilaa 750 diyaaradood oo rakaab ah dhamaystirka mashruuca soo saarida gawaadhida duula ee alaabaha qaada dhamaystirka sameynta diyaaradaha dagaalka ee Turkiga gudihiisa lagu farsameynayo qaabilitaanka 200,000 oo arday ajaanib ah sanadkiiba iyo waxyaabo kale badan oo aanan xaggan ku soo koobi karin ayuu Turkigu rajaynayaa July ka dhigo sanada 2023 bilowgeeda inuu xaqiijiyo waxaanu oran karnaa Turkigu qaybo badan oo kamid ah hadafkooda uu dhawaadan oo tusaale ahaan Erdogan markuu xilka qabtay ama xilka Turkiga qabtay oo madaxweynaha noqonayay jamhuuriyadda Turkiga waxa ku jirtay dalka 111aad dhaqaalaha adduunka waqti xaadirkan ay joogno waxa ku jirta dalka 16aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida sanada 2023 waxa rajaynayaan inay ka mid noqdaan 10 dal ee dunida ugu dhaqaalaha fiican ama ugu dhaqaalaha ballaaran waxaana cad in aan riyo kaliya ka ahayn ee ficilkuna uu meesha yaalo horumarkan ay sameeyeen ayaa dalal badan cabsi gelinaya oo ay kamid tahay qaaradda Yurub oo aragteen Turkigu ka sii hoos baxay quwad isku filan noqonayo waxa soo kale kamid ah Gariiga oo aynu oran karno waa badalka ugu horeeya ee sanada 2023 ka sii baqayo oo maadaama heshiisku burburi doono Turkigana xuduudaha uu leeyahay Gariiguna isbedeli doonaan Gariigu marka wuxuu ka baqeen Turkigu ku soo durko dhanka xuduudiisa isku filnaanshaha Turkigu gaaro awood wuxuu yeelan karaa inuu Yurub farta ugu yeedho
kana madax banaanaado xilliga iyagu wax u yeedhin jireen. Sidoo kale cabsida kale taagan ayaa ah in uu xulufo wadamada islaamka sameynayo ama uu sameyn doono markuu awoodda yeesho, oo iyagu arkana mar galbeedku soo noqoshada dowladda Cusmaaniyiinta ee caanka ku ahayd maamulida Yurub. waxa la isku dayay in badan in horumarkooda la hor istaago Turkigu gaarayaan aad ku dhaqsiya badan waqtigan Erdogan uu joogo. oo waxa kamid ah sanadii 2017 qalabka military oo wada ogeyn laakiin fashilmay. waxaanu Turkigu noqday meel oo horumarkiisa la hadal hayo oo yar tahay in warbaahinta warkooda maalin laga waayo. haddii ilaahay naftu noo daayo waan arki doonaa sanada 2023 iyo sida axwaashu noqoto horumar wanaagsan oo inuu rajaynaynaa walaalaha Turkiga. fadlan haddaad nagu cusubtay subscribe saar muuqaalkeena maanta intaas ku yeeyay. Assalaamu calaykum.